بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا مايرد channel 2 ولا لي مايرد channel 2 كحرة دمانتي وادي ودا سلامي بعد السلام waxaan kan ugu tacsiyeenayaa ummadda muslimiinta dhammaan ummadda Nabi Maxamed oo maanta geeri naxtin la ay dhacday dhaawac iyo dhimasho run ahaantii waxay aad wax laga naxo markii hore maanta jimcaha markii hore maanan ogeyn anaga markii oo fiidiyowga intaan sameyn kor oo la bistay suuqan u socday marka maadaama intaan bixin kor ay fiidiyowga sameeyay maadaama fiidiyowga oo sameysnaa iga hor dhacsanaa suuqa aaday suuqa markaan aadnay aan soo laabanay ayaa waxa dhacday anagoo suuq isla markaas ka soo laabaneen ayaa arintii la kulanay newskana ka aragnay waxaan inta xaajigeyga wuxuu dhamaanta waxaana dhacay ma aragtay ruuxad suuqa waan ka soo dhamaanay markaas guriga u soo soconay Allah yarxam raahimiin dhammaan ummadda Nabi Maxamed oo wada tacsiinaya inta ay ka geeriyooday eheladii iyo qaraabadii iyo muslimiinta dhammaan ru'aantii waxay ahayd murug aad u weyn ayaa maanta dhacday markii arintaas dhacday oo odagayga ii sheegay aan arkay fiidiyowga aan daawaday ana waxa rabaa iska sheegay horta ru'aanta waxa rabaa sheegay laakiin halkan kama sheegi karo waana naxtinta aan nahay isla markaas qofkii agjo ayaa dareemi karo inaa waalnaa inaa fiyowaa iyo wax sayga ahaayeen laakiin waxa rabaa sheegay laakiin waxay yihiin hadda inta kama sheegi karo laakiin qofka bini'aadamka waa laga dareemi karaa qofka agjo isla markaas wuxuu ka dareemi karaa wajigiisa iyo shakalkiisa waxaan dhacday murug badan ay qabatay kadib guriga markaas saas u soo galnay waxaan dhahay sug guriga iska baareenay hadalkii ugu wareegkaas oo ahaa waa cabsaday waxa uu cabsanaa marba islaam oo masaajid ku jira hadii lagu weeraray maxaa tahay marka qofka kale muxuu yahay oo banaanka taagan kadib hadalkayga labaad wuxuu ahaa ha aadin masaajidka maanta aan ku dhaw odagayga markaas uu igu qosay wuxuu dhahay waa beedkii Ilaahay oo dhahay waan aadayaa يعني أنا waxaan rabaa iska sheegaa waa shoogsana waa soo baxay oo igu wallahi guriga dhan waa baaray musqushaan ka bilaabay qolka wiilasha qolka gabdhaha wixii dhan fiiriyay waa cabsanay horta waa jareenay kadib ilmi aabooda iga aaday masaajidka kadib anigii asad bisa isku harnay marka isku harnay kursiga jiiftay madaxa xoog iyo xanuunay dab maanan shidin wax maanan qaban ana siya ii doonay waay marka saacadii kii yara iskoolka laga doonay la gaara marka odagay intoona bixin waxa ku dhahay waan cabsanayaa runtii in la shaafic mugta waan cabsanayaa markaas wuxuu ku dhahay islaana la laayay magaala la laayay islaan hadii mar la laayo waa inay gaalada cabsadaan adiga maxaa u cabsanay erayga oo ay dhahayna gadaal ayuu igaaga soo bixi doonaa waa soo baxay iskuulkii soo aaday asidkii yara soo guriga furan ku rugay waan baxay wadada inta socday horta wadadeen waa cidlo wadada inta socday horta waan baqaay aniga iyadoo jawiga gaanta iska cabsadaa waxaa dhacday iskuulka markaan aaday ruuxaantii iskuulka waxa isku maad dad badan aniga isoo fiirinay ani ayaga marka hore ka cabsanay marka guriga jooga laakiin marka banaanka baxay aniga iga cabsanaya way isoo fiiriyeen anigi qof waxa noqday oo maanta ku cusub meesha way fiirnaa ilaa newska dhan laga sheegay waxa dhacday newska waxaan ka daawaday hadda saacada ka hor dadkii Netherlands wadanka u dhashay oo ooynaayo oo haddana gaale oo haddana fiyoorhi u bixi wado oo masaajidka geenayo qodbada maanta jimcada wiil yar oo aad u yar newska inta Netherlands ka daawata arki karto iyo maamo weyn iyo odageeda newska ayaa laga soo daayay ayagoo u ooynaayo muslimiinta la baabi'iyay ayagoo u ooynaayo marka dadka newska ka arkayaan wax walba in islaamka oo 40 qof iyo 49 qof lagu laayay New Zealand oo islaam Allah yarxam raahimiin jannatul firdaws al-a'la ilaahay geey gacanka xaqdar ayaa dishay ru'aantii maalin jimcaha ay ahayd ru'aantii waxa jirtay dabeel aad u xoog badan oo cabsi leh ayaa jirtay maanta dabeeshaas aan ka yaabo dabeel xoog ah jirtay waxa dareemaysaa inuu dhiig baxay sida maanta u cabsaday ayadoo madaafiicda adduunka wadankii igu dhaxaysto wadankii aan ka soo tagay uma baqin sida maanta u baqay ayadoo madaafiic dhacay fooriyo dhacay hoobiyo dhacay dadkii dhaawac la kala guray laakiin maanta saa u cabsaday noloshay uma cabsan waa mid la yaabay marka taas waxay ku tusinaysaa meesha aad kali ku tahay yani islaamka anaga meeshaan yani waxaan ku nahay qurba joog islaam hadaan nahay marka waa inaa yani teena u baqnaa waa sax nafta ayaa ku tusinaysa in yani maanta aysan ahayn meeshaadii
kadib sheeka idin waday marka iskuulka aada waxaa dhacday in ayaga aan isoo fiiriyaan hoosaan fiirinaa cunugayga aan wataa kii kala sugaa way fiirinayaan way sheekaysanayaan waa fahmaani way fiirinayaan way sheekaysanayaan al-akhiiran ilmahayga iskoolka soo baxeen maalin jimcada waxaa dhacday ilmaha inay banaanka iga aadaano inaan jimcada waxaa soo galaya weekend ayaa soo galaayo waxaan dhahay ma bixaysiina jooga cabsi ayaa jirta ana qalbadeyda waa cabsaday xasla ma ilmihii si wax lagu soo sameeyaa ama wax dhacaan albaabka dil soo garaa waxaan dhahay yaa la furin adii cabsi oo gaare yani ilaa hadda idin hadlaayo waa 5 saac waa 11 habeenimo wax yar dhiman ilaa hadda beerka yani ay gubanaa ay huraayo alxamdulillah ala kulli shay kullu nafsin daa'iqatul mawt ayaa la dhahay qof walba maalintiis ayuu baxayaa ru'aan dadka muslimiintana gacan ka xaqdar ayaa dishay si aanan la fiirsan karin ayayna ahayd si aanan la daawo karin ayay ahayd si waxay ahayd qofkii oo daawada uu dareemayo xanuun gudihiisa uu ka dareemayo marka maanta taas ayaa idinkaga tacsiinaa dhammaan ummadda nabi maxamed muslimiinta dhammaan wiilkii Soomaaliyeed oo ku saqiiran sidoo kale laba jirka ahaa eedkii qaraabada oo ka saqiir aqra Allah ugu dhigo maalintii yawmal qiyaamana ilaahay kama hawaajiyo insha Allah codkayga hoose fiidiyoga aragtino waa caloosheeda waxa aan ka dareemayo guuga ka yeerayo waxaan idin leeyahay walaalay reer Mayrajo mar walba geeridu waa xaq meel isku soo jir la moogo mar walba qofka ku dhow qofka kale ha afiyo maanta ha ku shalaynin biri maxaa qofkan u cafin waayay muxuu iiga horgeeriyooday meel la isku soo jiro ma ogna anaga marka mar walba iscafiskana aan badino mar walbana baryada ilaahay aan badino mar walbana Allah subhanahu wa ta'ala agtiisa aan u dhawaano mar kul nafs daa'iqatul mawt ya Allah mar walbana in aan dhimanayno hada qalbadeen ku cid walbana way naga helisa ru'aantii maanta geerida dhacday waxay aad geeri xanuun badan oo bir ku saabsan oo xabada la fura oo madaxada ka dhax qeylinayaan oo hinta islaamka qeyladii iyo ninkii sida waxa u weeraray waxay noqotay ajiib wax oo laga naxo misan laga saso islaamkaas meesha ku dhamaaday maanta kulligood waxay wada ahaayeen maalinta adduunka ugu dambeysay ay wada ahayd kulligood hal maalin ayaa qabri loo wada hoysiinayay waliba saacado waliba maalin jimca salaadii khudbada loo taagay bal yaa ka nasiib badan dadkaas annaga waa naxsanahnay marxuumiintaas yaa ka nasiib badan annaga beerka ayaa na gubanayo waa naxsanahnay laakiin maalin khayr qabto waa la dhimanaa maalin khayr qabto oo jimca maalmaha ilaahay way kala khayr badiyeen beedka Allah ku sii jireen beedka Allah subhanahu wa ta'ala ku sii jireen ashhadanka sujuuda ku geeriyoodeen ru'aantii ilmo yar oo teenagers oo sasay waan arkay waxyaabo badan ayaa fiidiyooga laga arkaa laakiin buuq ka yeeray dhagahaada day maqlaan isla markaas waxaad dareemaysaa jirkaaga oo dhan uu dabaaxinaa marka haddaan muslimiin nahnay oo ummadda nabi maxamed nahnay aan isku soo duceyno oo geeridu waa xaq Allah subhanahu wa ta'ala mar walbana cafis weydiisano mar walbana Allah subhanahu wa ta'ala agtiisa u dhawaano insha Allah Allah naga qabto sharta tan maanta dhacdan ilaahay meesheeda nooga ekay mid maalin dambe dhacdan ilaahay nooguma dhigo insha Allah ta'ala walaalahayga reer Mayrajo caawantaas ayaa idinkugu soo galay fiidiyoogan maalin jimcaha marka aan sameeyay oo jimcii fiidiyoogaas aan sameeyay sidiisaba aan diyaariyay anoo ka labalabeyna ayaa idin soo geliyay kadibna fiidiyoogan sida aniga jabigayga oo noqday waxyaabaha dabeesha iyo roobka dhacay maanta cabsida weyn wax la soo koobi kara ma ahayn marka insha Allah ta'ala walaalahayga reer Mayrajo waxaa idin leeyahay adduunka waa laga tagayaa halis cafi iyo masaamax kulli nafsin daa'iqatul mawt ayaa la meel isku soo jir lama uga mar laadi mar saddexaad aniga ahaanteeda cafis ayaa iga tihiin idinkana sidoo kale qofka kugu dhaw cafi iyo masaamax ka qaata insha Allah hada dunya wax la isku dhadhajiyo ma aha adduunyadan wax la isku dhajima islaam aan wax galabsan ayaa la soo galaya la baabiinaya yani waa wax Allah subhanahu wa ta'ala wato shaqle insha Allah ta'ala walaalahayga waxaan idinkaga tagayaa fiidiyoo kale ila ku kulmeeno cafi iyo masaamax wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh